kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa channelka wararka ee Soomaali Barays ku soo dhawaada tabinteena habeen qodobada idin kugu soo gudbi doonana waxa ugu waaweyn madaxweyne ku-xigeenka Hiirshabelle oo ka hadlay ciidamada la geeyay magaalada Beledweyne sheegana inay laba arrin ay ka dambayso hadaba maxay yihiin halkan ayaa idin kula wadaagi doona dabageed oo fariin degdeg u diray siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Hiiraan sidoo kale qaar ka mid ah siyaasiyiinta gobolka Hiiraan oo sheegay ciidamada la geeyay Beledweyne ee qaarkood laga dhigay raba ergada si doorashada lagu dhaco hadaba kala aragtidu wanaasha siyaasadeed ayaa jira Cali Guudlaawe Xuseen madaxweynaha Hiirshabelle waxa si degdeg looga codsaday inuu cadeeyo mowqifkiisa warbixin ayaa idin kaga haynaa arrimaha gobolka Hiiraan xiisadaha ka taagan wararka kale waxa qayb ka guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka hakiye ilaa 3 kursi kadib eedeymo loo soo gudbiyay hadaba kuraastaasi ayaa horey lagu doortay amaanta la hakiyay iyo wararkii ugu dambeeyay arrimaha doorashooyinka magaalooyinka Muqdisho Garowe iyo Dhuusamareeb doorashooyinka maanta ka dhacay ayaan idin kula wadaagaynaa wararkeena ee daawada haduu muuqaalkan ku soo gaara si share garay saaxiibadada kalena si gaarsii page-keena ku soo beer iyo sidoo kale YouTube-keena Soomaali Barays haddii aynu ku bilowno madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hiirshabelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa ka hadlay ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ay geysay magaalada Beledweyne kuwaas oo ka dhalatay xiisad xooggan xilligaani Yuusuf Dabageed ayaa sheegay in ciidamada ay dalbadeen ka maamul ahaan si ay ula dagaalamaan ururka Al-Shabaab isla markaana aysan shaqo ku lahayn arrimaha la xiriira boobka doorashada sidoo hadalku u dhigay Dabageed cadow ayaana qabsaday kuwa shalay inoo yimid ciidamada naguma filna kuwa kale ayaana u baahanahay waxaana ka codsanaynaa dowladda inay nagu soo darto si cadowga ay ula dagaalamaan ayuu yiri Yuusuf Dabageed sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka Hiirshabelle ayaa si adag ugu jawaabay hadalkii xalay ka soo yeeray siyaasiyiinta beesha Xawaadle oo horkacaya wasiirka arrimaha gudaha General Mukhtaar kuwaas oo ka hor yimid ciidamada la geeyay magaalada Beledweyne nimanka siyaasiyiin isku sheegaya ayaa shalay ka hadla Muqdisho sida ayna ka warqabno waxay u tageen ra'iisul wasaare waxayna kala hadleen sida ciidanka dowladda Soomaaliya u dirtay Hiirshabelle gaar ahaan gobolka Hiiraan ee caasimadiisa Beledweyne waxa nasiib darro ah in aad tiraadaan dad aan metelno ayaan ka soo jeednaa haddana danaha kale ee masiirkooda aan waxba aan u qaban ayuu yiri Dabageed waxa uu tilmaamay siyaasiyiin iyo kuwa kale oo kuraas raadisa inaysan marraba ku hadli karin magaca dhan ee gobolka Hiiraan iyo bulshadiisa Dabageed ayaa ku adkeeyay carabka in tabasho kasta oo ka taagan maamulka loo baahan yahay in loo daba fariisto madaxweynaha Hiirshabelle Guudlaawe oo aysan marraba aqbali doonin Muqdisho lagu soo dhameeyo ugu dambeyntii waxa uu ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ugu baaqay in tilaabo uu ka fiirsado oo ka qaatay xiisada Beledweyne isagoo ku degdegin go'aan aan la mahdin oo ka sii dari kara xiisada halkaasi ka taagan hadalka madaxweyne ku-xigeenka Hiirshabelle ayaa imaanaya kadib markii xalay warbaahinta la hadleen siyaasiyiin ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha gudaha General Mukhtaar Cabdullaahi Goodax Barre Cabdullaahi Sanbaloshe xildhibaan Qoone iyo xildhibaan Jindi oo dhamaantood ka soo jeedo gobolka Hiiraan oo si adag uga soo horjeestay ciidamada shalay la geeyay magaalada Beledweyne sidoo kale waxa siyaasiyiintaas qayb ka ah madaxweynaha hore Hiirshabelle Maxamed Cabdi Waare oo isna dhankiisa Hiiraan ka soo jeedo siyaasiyiintan ayaa ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Hiirshabelle Cali Guudlaawe ugu baaqay inay cadeeyaan mowqifkooda ku aadan ciidamadaasi sidoo kalena digniin u diray saraakiisha Xuseen inay taliyaha ciidanka dhulka General Buuxo oo qayb ka yahay oo farmaajo u dhow kana dambeeyay geynta ciidamadaas ee Beledweyne sida aynu xogaha ku helayno si kastaba ha ahaatee Beledweyne waxaa dhawaan la filayaa inay ka dhacdo doorashada qaar ka mid ah xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka dowladda Soomaaliya waxaana xusud mudan in halkaas uu yaalo kursi kooxaha farmaajo ay la rabaan agaasimihii hore ee Nasa Fahad Yaasiin kaas oo hadda uu ku fadhiyo xildhibaan Faarax Sheekh Cabdulqaadir isla wararka gobolka Hiiraan ayaana ku guday jirnay gudoomiye hore ee baarlamaanka Hiirshabelle Cismaan Barre ayaa sheegay in ciidamada la geeyay dhankiisa Beledweyne qaar ka mid ah laga dhigay raba ergo isagoo ugu baaqay madaxweynaha Hiirshabelle Cali Guudlaawe inuu cadeeyo mowqifkiisa gudoomiye hore ee baarlamaanka Hiirshabelle ayaa ka dhawaajinay ciidamadaasi loo adeegsan rabo qaarkood ergada soo dooran doonta xildhibaanada kuraastood taala magaalada Beledweyne ee ku doonaysa fila Soomaaliya inay boobto halka kuwa kalena la rabo in lagu carqaladeeyo amniga magaalada Beledweyne waxa uu ku baaqay wax kasta oo dhibaato ah oo sababaan ciidamadaas inay dusha saaran doona madaxweynaha madaxweynaadkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale madaxweynaha Hiirshabelle oo ka dambeeyay dhankiisa amarada ciidamadani maadaama Hiirshabelle ay raali ka tahay madaxdeeda inay yimaadaan ciidamadaasi magaalada Beledweyne kaas oo madaxweyne ku-xigeenka Hiirshabelle Yuusuf Hagar Dabageed uu cadeeyay inay ciidamadaasi ayaga u yeerteen lana dagaalami doonaan ururka Al-Shabaab waa sidoo hadalku u dhigay balse hadalka Dabageed mid ka duwan ayay qaban siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Hiiraan oo ku baaqaya xilligan in ciidamadaasi laga leeyahay ujeedooyin gaar ah isla markaana loo baahan yahay in shacabka gobolka Hiiraan la dhibaateyn
Cismaan Barre gudoomiyihii hore ee maamulka Hirshabelle ayaa xilligan ku baaqayo in xaaladda beledweyn wada hadal lagu dhameeyo isla markaana aan looga darin xiisadii horeba uga taagneed. Ciidanka badbaadada gobolka Hiiraan oo maleeshiyad oo badan ah ayaa hore ugu sugnaa magaalada beledweyn, waxaana shalay dowladda federaalka ee Soomaaliya ay geysay ciidamo aad u fara badan kuwaas oo sheegeen inay amniga magaalada ay wax ka bedeli doonaan. Siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Hiiraan iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle ayaana hadallo kulkulul hawada isku mariyay maadaama ay ku kala aragti duwanaadeen ciidamada la geeyo magaaladaasi. Markaana guddiga doorashooyinka xalinta khilaafaadka ayaa hakiyay natiijada 3 kursi oo xildhibaano dhawaan la doorta ah. Guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dalka ayaa goor dhaweed shaaciyay inay hakiyeen ku dhawaaqista natiijada rasmiga ah ee kuraasta ay tirsigooda yihiin Hob 201, Hob 209 iyo sidoo kale Hob 211 oo dhawaan la doortay. Saddexdan kursi ee dacwadda laga keenay waxay ka mid yihiin kuraasta gobolada waqooyi oo maalmo ka hor lagu doortay magaalada Muqdisho, waxaana dacwaddaasi soo gudbiyay Suldaan Diiriye Geelle Cali iyo sidoo kale musharax Khayriya Maxamed Maxamuud. War-saxaafadeed ka soo baxay guddigan ayaa lagu sheegay in 3 kursi laga keenay dacwada isla markaana ay ka go'an tahay go'aanka gaaridda guddiga dacwadda loo soo gudbiyay. Guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban isagoo gudanaya waajibaadka shaqo ee loo ogmaday waxa uu ku wargelinayaa guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal in la hakiyay ku dhawaaqista natiijada rasmiga ah ee kuraasta laga bilaabo maanta oo 27 bisha 1 2022 uuna go'aan ka gaaraya dacwadda loo soo gudbiyay kuraastaasi guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka. Sidoo kale waxa uu sheegay guddiga inuu muddo 7 ah uu ku dhameystiri doono baaritaanka cadeymaha dhageysiga iyo sidoo kale dhinacyada ay qusayso dacwadda ay ka go'aanka gaarista dacwadda taas oo ay ka bilaabanaysa maanta oo si rasmi ah ugu dhawaaqeen hakinta kuraastaasi. Guddiga ayaa ugu dambeyntii ku wargeliyay guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal iyo guddiyada hirgelinta doorashooyinka gobolada waqooyi ee Somaliland inay si dhow ula shaqeeyaan xubnaha gacanta ku hayo baaritaanka dacwadaasi si loo helo xog dhameystiran uguna soo afmeeraan waqtiga loo qabtay dacwadaasi. Doorashada dalka oo si xawliya ku socotay xildhibaanada golaha shacabka waxaa durbadiiba soo shaabaxay boob iyo sidoo kale kala aragti duwanaansho u dhaxeeya siyaasiyiinta iyo madaxda intaba, maadaama madaxda maamul goboleedyada iyo sidoo kale xubnaha gacanta ku haya doorashada xildhibaanada aad looga cabanayo inay la doonayaan shakhsiyaad gooniya si ay ugu soo saartaan, taas oo ah mid muran badan gelinaysa doorashada xilligan dalka ka socoto. Shirkii ugu dambeeyay ee golaha wadatashiga qaranka qodob ka mid ah ayaa ahaa in doorashada ay noqoto mid furan oo daahfuran musharaxiinta dhammaan u tartamaan balse aan la musuqmaasuqin. Doorashooyinkii socota ayaana ahaa kuwo wada xiran dhammaantooda xildhibaanada golaha shacabka ee maamul goboleedyada qabteen iyo sidoo kale kuwii lagu qabtay magaalada Muqdisho ee gobolada waqooyi, taas oo musharax ka soo wato qof mulxiis u ah. Taasina ay burinaysay shirkii golaha wadatashiga qaranka oo ahaa in laga dhigo doorashada mid daahfuran laguna baaqaynaysa mar kale soo noqon tabashada taagan ee muddada soo noqonaysay. Musharaxiinta qaar waxay ku baaqayaan in beelaha kuraasta lahaa laga majaxaabiyay isla markaana madaxda maamul goboleedyada iyo shakhsiyaadka kale ee maamulaya doorashada ay iyaga gacan ku hayaan qofka ay la doonayaan ay ku soo saarayaan, taas oo caqabad weyn ah. beesha caalamka iyo dhinacyada siyaasadda ee Soomaaliya taageero ayaana ugu baaqaya madaxda dowladda goboleedyada iyo kuwa dowladda Soomaaliya in waqtiga loo qabto doorashada lagu soo gabangabeeyo. inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa daawadayaal barnaamij wareedka aad kala socoteen channelka wararka ee Somali Barays. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay soo dhawow page-keena iyo YouTube-keena ku soo biir mahadsanideen.